bahda tiifiyada ilaa intaan xafladda ku jiray social media aad leegala soo hadlayeen waxaan rabaa in halkan ka cadeeyo waxa xaaladdu hayd anigu waxaan maxamed cilmi halkan shaqaan u yimid kadibna waa lagu soo casuumay mataqaanaa inaan kala soo qayb galo caleemasaarka mar maxayday madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waan ka soo qayb galay anigu maxamed cilmi baan ahay shaqo gaar ah marka hore u yimid laakiin shacbiga reer Jubbaland waan ku hambalyeeynaya muxuu nabadgelyadooda horumarka ay gaadheen madaxweynaha dib ay u doorteen waxa kale oo hambalyeynaya madaxda kale ee Soomaaliya ka timid ee jabisay cunaqabataynta dawladda federaalka Soomaaliya ay saartay maamul goboleedyada Soomaaliland waa maamul ka madax bannaan muxuu ahayd maamul goboleedyada oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa tahay arinta muxuu ahaa wada hadalka guud ahaan u noqonaya shacbiga Soomaaliland waxay u muujiyeen shacbiga Jubbaland taageero xooga oo ah dulmiga dawladda federaalka ay ku sameynayso dadkii mataqaanaa iyada ay xeerka wada dhigteen Soomaaliland arintaasi meel cad bay ka istaagtay leeyihiin shacbiga Jubbaland yaan la cadibin anigu maxamed cilmi ahay shakhsi baan u yimid waxa kale dawladda Soomaaliland ku dhiirigelinaya inay mataqaanaa muxuu ahaa cid ay isku duruufaha yihiin ee la xudxudan karo siyaasiyan way wayna saaxiibo ku yeelataa Soomaaliya wadlaha hadashaha baraha bulshada waxa lagu soo qoray inaad Soomaaliland matalaysay caleemasaarka saas uga qayb gashay anigu Soomaaliland ma matalayn Soomaaliland cid ay matalaysay ila soo dirata anigu maxamed cilmi baan ahaa halkan arimo gaaraan u shoogay waa la igu casuumay waan ka soo qayb galay shacbiga Jubbaland waan hambalyeynaya madaxweynahooda waan hambalyeynaya waxaan rabaa fariinta cad in la gaarsiiyo waxaan leeyahay hambaliyo